السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهور ونكسر صاحب بيال ميل كاستوى الدنيا كجوكتان كسر هذا برنامج كيني جول أبديت ظهور نمو ونكسر هذا جري وحيابها أبديت كوجودن بيع عيارها وعنسوق هذا دونا مانتا وحيابي وجودن بيع أبديت كعيارها أو أي قريب كيين وكعيارتو ريال مدريد أو فكرين وكبير كحدة أتلتيكو مدريد أيانو إيجي دونا مانتا سيدنا وعنسوق هذا دونا مورينيو إيو تاريخ دول السمية كحدة كبدا عكتة مانشستر يونايتد إمريك لابورت إلا يجوارديولا وعنسوق هذا دونا مانتا شيء كوي كلوين بان برنامج كسوق هذا دونا وقريب وكيهاي arinta heshiiska isdhaafsiga ciyaartoyga Barcelona Juventus halkeebu maraya maanta wali waxaan soo qaadan doonaa war waaweyn oo ay ku jiraan ninka la yiraahdo Messi iyo ciyaartoygii kooxda Barcelona ee taariikhda ka caawiyay inay Barca gaarto macallimiinta goatska ah ee Kamal Daarigu soo maray hadda maqli jirtay goatka Kamal Daariga hadda waxaad maqlaysaa goatka macallimiinta Champions League wake iyo qodobo kale oo soo qaadan doonaayo maanta kaliibsiga iyo sheekooyin kale ku jiraan aniga qaar barnaamijka la socodsiinaya waxaan farsameynaya Sharmaarke barnaamijku kana waa goal update oo goal boodi kaga imaanaya door wanaagsan asxaabay soo gudbida barnaamijkan waxa ka qayb qaadanaya shirkadda gaaska ah ee Orange Gas tahay saaxiibayaal meel kasta waa dunida ka joogtaan barnaamijkeeni baanu eegi doonaa duhurnimo goal update iyo maanta waxyaabo badan baa inoo socda oo aanu ku eegi doonaa wararkeena maanta bal aanu ku horumarno bal haddaba aanu ku horumarno maanta oo kale iyo 2011 markii Cristiano Ronaldo uu ka carooday taageerayaal waa markii ugu carada badneed wiligiis bay ahayd uu magaca Messi aad ugu caroodo waxaad maqli jirtay laba caanule isma jecla caanuley isma jecla laba qof oo isku kab ah isma jecla micnaha ahay labadan labada dad isku yacan isku wax ah iyo isku shaqo ah ama isku wax ka wada shaqeeyaba isma rabaan marka Ronaldo ma maqli karo magaca Messi hadduu maqlo waraabowga ku kacaya hadda maxaa dhacay maanta oo kale 2011 Cristiano Ronaldo waxa ka careysiyay taageerayaasha kooxda Dynamo Zagreb ka careysiyo markay ku dhawaaqayeen isagoo ciyaaraya magaca Messi in badan kooxaha Ronaldo ka soo horjeeday waxay sameyn jireen magaca Messi ku heesi jireen si Ronaldo ay ugu careysiyaan ciyaartan ugu dhumiyaan hadaba Ronaldo hada la yaab leh sanadkaas 2011 ku hadlay isagoo taageerayaasha yaa u shaf garaacday yaani ila haddana ka shalaynay wuxuu waqtiga sheegay marka Champions League buu ahaa kulan ka tirsan Champions League oo Real Madrid uu ciyaaray 2011 Dynamo Zagreb taageerayaashiida ayaa ku shitay oo garoonka dhan ka dhigay magacii Messi ku dhawaaqay inta habeenka Ronaldo ciyaaray magaca Messi buu ku dhawaaqayeen oo yaani ninkan bay kaga caarisiinayeen Ronaldo maalinka habeenka ciyaartu wuxuu ku dhameystay xanuun buu ku dhameystayo xitaa garsooray ciyaartu uu eeday wuxuu kaasoo garsoor naga raacin waxa jirtay waraysi laga qaaday marka Cristiano Ronaldo oo ka hadlay dabeecadii taageerayaasha Croatianka isagoo ay kula dhaqmeen maadaama nin ficiis oo saagiisa magaciisa ay kula qaylinayeen garoonka dhexdiisa marka odaguna waa dhacab yahay ninka galay gaabka magaciisa in lagu soo sheeqaado hadaba Ronaldo ereygi ama xilliga wuxuu ku hadlay ilaa Ronaldo ka shalaaya waxa la xustaa maalinta waxyaabo lagu xusano waxa kamid ah Ronaldo hadalkii uu yiri dhacdadaas kadib markii taageerayaasha ay ku qayliyeen magaca Messi isagoo kaga careysiinayeen wuxuu yiri Cristiano marka ciyaartu soo dhamaatay waxa uu yiri waxaan u maleynayaa wax sababta ay igu yani ma taqaana ii dhibayaan ama waxyaabo kale igala soo baxayaan ama iga careysiinayaan sababtoo waxaan nin taajir baan ahay anigu sababtoo waxaan ahay nin taajira hadda saqurxan hadda ciyaartoy weyn ah marka waa sababtay ma taqaana iga careysi way iga hinaasayaan yani way iga maseerayaan buu aan waxaan ahay nin taajir baan ahay Ronaldo markaas lacagtiisu ku faanay anigu waxaan ahay nin taajira qurux badan haddana laacib weyn ah marka Ronaldo hadalkaas uu yiri ayaa mar dhaweyd dib mar kale loo weydiiyay Ronaldo ayaa 3 sano kadib marka ereyga la weydiiyay sheekada la weydiiyay ku jawaabay inay ahayd qalad uu isagu galay wuxuu yiri qalad bay ahayd burina ereyga ku hadlo oo waxaan ka shalaynayo macnaheedu wuxuu ku faanay inuu yahay nin hantila wuxuu taajir baan ahay wax tasbad kama seerisan waa wiil laacib weyn baan ahay oo wali nin qurxoon baan ahay waxa uu yiri ciyaarta habeenka way iga dhacday wiil marada la yiciliyo waxay qalad aan sameeyay uu ahaa wuriyo inaan sidaas oo dhan sameeymaan u hayn war careysnaa wiil ciyaarta kadibo sababta anu gool ma dhalin habeenka gool ma dhalin Ronaldo mid kale wuxuu jecel yahay dadka magaca Messi ku dhawaaqay dhan intay Messi leeyihiin inuu gool dhaliyo aamus Messi beelayaaliyo inuu yiraahdo jecel yahay marka wuxuu habeenkaas anigu ma dhalin sababta darteed baan u carooday wiil erayaasha xunna ay kaga soo baxeen marka qofka saqalad way ka dhacdaa wiil Ronaldo wuxuu qirtay inuu ilaa hadda ka shalaynayo marka maalintan oo kale 2011 taageerayaasha Croatianka ayaa ka careysiyay Ronaldo isagoo magacii Messi ku dhawaaqay isagoo ugu jawaabay way iga maseerayaan oo taajir baan ahay qurxoon oo laacib weyn ah
weli barnaamijkeedii baan ku gudi jirnaayo waxyaabaha ugu waaweyn baan u eegi doonaayo maanta oo kalena Barcelona ayaa samaysay taariikh weyn waa 2009kii markii Barcelona ay garaacday Manchester United 2 gool iyo eber ya ilaahay markiis Barcelona waxay daba dhigatay Manchester United bay daba dhigatay sababtoo ah Barcelona koobkeeda ugu badan Champions League waxay ka qaadeen kooxaha Ingiriiska bay ka qaadeen hal Arsenal ay ka qaadeen iyo 2 Manchester United ay ka qaadeen marka kooxaha iyo Talyaani oo iyana ay ka qaadeen 2 shan jeer bay miyaan haysan kuwan shan jeer bay Champions League haystaan marka Barcelona way ba jecel yihiin kooxaha Ingiriiska marka maanta oo kale 2009kii Barcelona waxay ku wacdaraysay nimanka la yiraahdo Manchester United bay ku wacdareeyeen Messi nin gaaban iska biibiya goolli yaa ka warnay Ferdinand wuu yaabay wuxuu midkan coonka intuu booday buu halaha dhir tagay waa la yaabay sidoo Messi ku dhaliya goolka Messi wuu gaabay bay yiraahdaan intuu biibayo madax dhac ku siiya goolka yaa laga yaabay marka maanta oo 2009kii Barcelona waxay garaacday Manchester United iyagoo 2 yeer ku garaacay Champions League sanadkaas Barcelona waxay dhameysteen waxa loo yaqaano triple-ka waqtiga Guardiola safajadiisa ugu horeysay ee Guardiola ugu qabatay aan la yaabay Guardiola u qabatay waa sanadkii debut season-ka buu ahaa ee Guardiola sanadkiisa ugu horeeyay buu ahaa 3 clay cup ay sameeyeen taariikh bay sameeyeen waxaanay sidaas ku noqdeen kooxdii ugu horeysay Spanish ah oo taariikhda 3 clay cup guuleysata oo 3 clay cup waatay Champions League dalaraygu ila lig ilagu guuleystaa ilaa hadan iyagu baa ah oo Real Madrid marna ma ayan sameyn 3 leeda koob hal sano in la isku wada qaado Barcelona 2 jeer ay hadda mar kale bay dib u sameeyeen oo ay markii waqtigii aan rikin way sameeyeen marka toddobaadkan oo kale waa markii Manchester United ay 2 ku garaaceen Barcelona Messi Eto'o ayaa gool ku dhaliyay Eto'o 10 daqiiqo ciyaarta ku bilaabay Man United kadibna Messi ayaa u xijiyo marka mar kale bay 2 kutub ku Champions League isku arkeen haddana Manchester waa la garaacayo gool badan baa lagu fardhiyo Pedro iyo Villa iyo Messi baa meel saaray marka 2009kii maanta oo kale waa waqtigii Barcelona ay dhameystiratay taariikhdii weyneed yacni 3 leeda koob kamida xusuustooda ugu weyn xusuusaha gaarka ah ay kooxdan Catalonia ka dhisan leedahay waliba se waxay ku beegan tahay maanta oo kale markii Arsenal ay ku guuleysatay koobkeedii 13aad ee FA Cup-ka Canaries 2000 koobkan FA Cup Arsenal la quudan jirtay laakiin bariyahan FA Cup-koodii aad lagu soo galayba يعني FA Cup waa waxa Arsenal lahayn jirto macna Arsenal ku dhigi jiray taqana anaga FA Cup anaga iska dhigi jirin FA Cup keena noo dhaafo way dhigi jireen oo ayagu FA Cup kaas iyagaba yani daldalan jiray laakiin bariyahan iska dhaaf FA Cup inay wax kale inay qaadaan FA Cup kii xitaa way qaadi laayihiin maxaa dhacay maanta 2007 Arsene Wenger iyo kooxdiisa Arsenal ayaa ku guuleystay koobkoodii 13aad ee FA Cup-ka waxay noqdeen kooxda taariikhda ugu qaadida badan koobkan markii ay 2-1 ku garaaceen Chelsea هذا وينجر أيانا سيدو كان حلقاس نقضي معلن كالتاريخ وقبضا أرسل كوبكا كان يعني اف كابكا هذا التاريخ دو اف كابكا وحلوك الخادس سيدا كان أرسنال وستحي 8 كوب قادي ما يونايتد او 8 كوب قادي تشيلسي وسديد قادي توتنهام وسديد قادي أرسنال فينجر قديس أيام 7 قادي ليفربول 7 قادي أستون فيلا 7 قادي لح نيوكاسل قادي مانشستر سيتي لح قادي بلاك بول لح قادي marka وينجر كوبكا waa jeclaa jiriyo waa daldalay jiriba kaligiiba wuxuu qaaday 7 jeer halka Arsenal ay ku guuleysatay 13 jeer oo maalintan oo kale Arsenal taariikh bay sameysay wali barnaamijkeena waan ku gudi jirnaa waxaana soo gudbinta barnaamijkeenu ka qayb qaadanaya shirkadda gaaska Orange Gas oo dalkeedin keentay haamanka caaga gaaska waa safe aanu ka qarxin gurun aan ka goyn fudada qof walba qaadi karo cabir gaaskana halku marayo durba wad la socon kartaayo hadduu gaaska goona daqiiqadii baa lagu keenayaayo 5-3 abiraad baad ka wici karaysaayo waxaan u wanaagsan qoyska caruurta hooyada guriga hantidaba ma ahan kuwa bow dhahayo guryaha ka gooye biraha waaweyn ku jira 5-3 abiraad ka wici karaysaa si aad u hesho oo aad guriga u dhigato xilligan stay at home-ku shirkadda Orange Gas waxay ku suurtagelinaysaa hanta aaga wad gaasku kala soconayso wanaageeda faraha badan yahay bal wali barnaamijkeeni baan ku gudi jirnaayo bal markana aynu eegno waa kee tababaraha goodka kubadda cagta waxaad maqli jiray waa kee good
واحد مقلي جرتي واكي جود ككمال دارجة ما ميسي رونالدو ولا قد دوضة رونالدو يكون صدق يا رونالدو إري geesaha loo siro ku soo dhigay wuxuu ku leeyin ama Ronaldo iri gacanta ku haya wuxuu ku leeyahay waa goodkii Kamal Daariga yani good maxaa laga jeedaa greatest of all time ki ugu fiicnaa maalintii Kamal Daariga ariga lagu shubay yani maalintii Baroniga la ariyay ki ugu fiicnaa bay kala jiraan halka dadka qaarna ay ku leeyihin waa Messi oo ay iri ag dhigeen ay ku leeyihin waa odayga Kamal Daariga laakiin midda ciyaartooyga meel laga dhig waa ki goodka tababarayaasha Champions League taariikhda good micnuhu ki ugu fiicnaa tababarayaasha abid Champions League waa kee haddaba maanta waxaan eegi doonaa 10kii tababare ugu fiicnaa Champions League soo maray taariikhda waase kee ka number 1 ku jira aan ka bilowno tiradu aan musalsalayno ila musalsaladu habeen kasta waxa qajaf lagu soo siinaa habeen kale qajaf wax ku soo siinayaan habeen kale qajaf lagu soo siinayaa habeen kale qajaf lagu soo siinayaa adi soo taagnawa waa sababta ragga qaar ay u carudan yiraahdo war naga tag ma musal ma shakarna ka dhaay ha iska dumareeyaan yiraahdo ya waa wax wala uu ku cayraga wayaan habeen kasta qajaf ma ogola rag waxay rabaan waxooda isku duwaritaan bay rabaan habeen uu ka aan fadhiga ila ciyaari u barteene halka waqti ku soo dhamaanayba haddaba taariikhdu macallimiinta ugu qaadida bad yani macallimiinta ugu fiicnaa Champions League tobanaad aan ka soo bilowna gadaal aan ka soo koowaad ninka ayaa Champions League ugu khatarta badnaa macallin rekoorkiisaan lagu sheegaya Omar Hartzfeld oo ahaa nin Dortmund iyo Bayern Munich tababar u soo ahaa kontii 100% uu ku guuleystay Champions League ninka ayo 97 Dortmund buu qaaday 2001 Bayern Munich buu qaaday ninka Champions League nin weyn buu ahaa Rafael Benitez nin kale weyn buu ahaa ka 700kiiba wuu la guuleystay kooxiisii wuxuu soo leeliyay Liverpool Inter Milan Chelsea Napoli Real Madrid ninka Liverpool la qaaday Champions League 2005 waa macallin weyn Vicente Del Bosque Real Madrid buu tababar u soo ahaa ka 700kii wuu guuleystay oo ninka wuxuu la qaaday Champions League laba jeer buu ku guuleystay 2002 Madrid uu la qaaday ninka ka laba Champions League buu ku guuleystay nin weyn buu ahaa Job Haykens Real Madrid iyo Bayern Munich buu Champions League u qaaday 98 Real Madrid 2003 Bayern Munich buu qaaday Sir Alex Ferguson isna wuxuu ahaa nin kale weyn oo Manchester u qaaday Champions League 99kii 2008 waa ninka lixaad waa macnaha macallimiinta ugu fiicnaa Champions League taariikhda ninka shanaad ee Champions League ugu fiicnaa macallin wuxuu ahaa Louis van Gaal wuxuu soo leeliyay Ajax Barca Munchen United ninka guulihiisu waxay ahaayeen guulihiisu ninka wuxuu ahaa yani Champions League wuxuu ku guuleystay hal jeer 1995 wuxuuna la qaaday kooxda kubadda cagta Ajax Jose Mourinho ah macalinka afraad ugu fiicnaa Champions League soo leeliyay kooxo waaweyn Porto Chelsea Inter Real Madrid United iyo Tottenham waxa uu Jose Mourinho la qaaday Champions League Porto 2004 2010 Inter Milan buu la qaaday waa macalinka afraad ugu fiicnaa Champions League taariikhda Ancelotti waa nin weyn Parma Juventus Milan Chelsea PSG Real Madrid Bayern Munich iyo Napoli waa gar tababar weyn buu ahaa ninkaas wuxuu ku soo guuleystay Champions League 2003 Milan la qaaday iyo 2004 Real Madrid la qaaday nin weyn buu ahaa sidoo kale yaa armuxu xanjirug buu ahaa sida Ferguson oo kale Guardiola oo kale isna waa tababaraha labaad baa lagu leeyahay ugu fiicnaa Champions League soo maray ileen waa ninka 2009 ku guuleystay Champions League 61% ay guuleys ahaayeen number 1 Zidane tababaraha goodka tababarayaasha weeyaan sababtu waxay tahay isagu waa ninka 3 jeer xiriir ku guuleystay waqtigan Champions League uu jiro dhaga weynaha waqtigan Baroniga yani Champions League waqtigan magacaan loogu wacayo Champions League loogu wacayo ma jirto tababare 3 san xiriir ku qaadaya 2006 2007 2008 waxay taas ka dhigan tahay Zidane inuu yahay goodka tababarayaasha Champions League ee taariikhda gabagabadii baanu joognaayo haddaan kabta iyo karinta ka dhigna kuwa ugu dambeeya ee barnaamijkeenu marayna markaane Champions League wuxuu doonayaa Madrid inuu ku baxo kadibna uu ku biro cadawga ugu weyn ee Real Madrid ayuu Atletico Madrid buu doonayaa inuu ku biro James 300 maalmood baa ugu dhim waqtigiisa inuu Madrid ka baxo heshiiskiisa wuu dhamaaday James waxaa la soo warinayaa Atletico Madrid inuu doonayo xilli ciyaareedkan uu ku biro waxa isagu aanu qayb ka ahayn qorshaha Zidane Everton Arsenal baa qayb ka ah xitaa ciyaartooygu doonaya ninkan 30 jirka ayaa laacib weyn ahaa laakiin waa laacibiintii weeraray ee dhumay James Rodriguez asaan noqona ismaada lahayn koobkii adduunka mar goolintiisa qaaday bannaankana goolasha ka tooganayay marka James waxa uu kaliya doonay inuu ku biro cadawga ugu weyn Real Madrid iyo Atletico Madrid malaha wuxuu rabaa Real inuu waalo doonaya cadawga loo mar raba ka wariya Real wuxuu leeyahay anigu cadawga bisan ku beeraya wuxuu rabaa inuu iskiintu si waa kaad weerarisanay kaad asna dhaawac baa diray
Arsenal Tottenham waxa la sheegay inay ku dagaalamayaan saxiixa ciyaartooyga William xilli ciyaareedkan waa free Chelsea ma doonayso heshiis cusub ka saxda baa leeyahay yani ciyaartooygu heshiis waqti kooban mar rabi wuxuu doonayaa heshiis waqti dheer buu doonayaa Chelsea waxay leedahay waa ila tahay 3 sano heshiis ku siin karno hadaba waxay warar ku leeyihiin heshiiska ciyaartooygu wuxuu dhacayaa bisha soo aadan heshiiska in loo kordhi doona yaa wali laba huba xilciyaareedka markuu dhamaado ayaa loogaan xilciyaareedka markuu dhamaado inay isku kordhinayaan Chelsea lama oga balse waxaa la og yahay in Tottenham iyo Arsenal labaduba ay ku dagaalamayaan saxiixa ciyaartooyga kan weyn ee William wali waxaa jira warar weyn oo sheegaya in Chelsea si shoog ah ay ugu dhaqaaqday ciyaartooyga Brentford wiilka Algerianka garabka ka ciyaara ee lagu magacaabo Saeed Benrahma oo loo yaqaano Algerian Messi waa Messi Argentine dunida waxa yani Messi Algerianka waa dunida waxa soo maray Messi Heblow Messi Iran Messi Kambalow Messi Kano Messi Masar Messi Saas inka Salah durag ugu fiican kamid yahay Messi lagu soo magac daray hadda waxa soo baxay Messi kale wala nin ay Chelsea doonayso uu leeyahay waa garab Chelsea bariyan garab u baahan tahay oo hasad baa ka tagayo nin garab u baahan tahay Chelsea shoog u doonto baa leeyahay ciyaartooyga Algerianka garabka ka ciyaara Algerianka waa taqaan laacibiina ku jirto meeshaas Mahrez baa ku jireen ya wiilkan Brentford buu ciyaara waxana loo yaqaanaa Algeria Messi baa loo yaqaanaa waa nin garabo marka magaciisu waxa weeyaan Saeed marka hadda jil Saeed iyo soo gadarata marka waa kaayo maanto waliba waxa ciyaaraha yana kamid ah oo warka ugu dambeeyay kamid ah Arsenal waxa la sheegayaa in Ousmane Dembele ay fiirnayso xilli iyadoo kale Coutinho ay doonaysay haddana Ousmane Dembele bay raadinayaan baa leeyahay Juventus baa doonaysa inay qaadato ciyaartooyga Jerome Boga oo Chelsea uu ku laabtay rabay Juventus baa qaadanaysa leeyahay Juventus wax kama deeraysa Boga xataa waa rabtaa ka war Cardina waxa warar ku leeyihiin wuxuu ku sii dhawaan inuu ku biro kooxda kubadda cagta ee Paris Germany barnaamijkeeni ظهر نماية جول أبليد بان انتا كوكو بغيني الناس حابة يسنا يا نبات قليو